السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هنتي من مركز صندوق دعوة نزار هالكني وهم ودانونا وحنا عبد الرحمن هدي أنا لتشوكتي واد ما هتصنت هاي برنامج كأنه شرقة صاحبة يا صومالي لو ذاك هدي أنا نقول عصبت هاي نقول صبروا channel كسبسكرايب نوصار وحنا صار نهب ودادي بقول كون سدا إنه تقي هدي برت الفيسبوك أنا غلط دعوة نيسنا فلو نصوده cashirkani waa cashirkeenii 16aad oo ka mid ah casharaheenii taxanaha ee dhaqanka sooyaalka ee Heer Ciise waa dhaqan ay hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan dhaqamada soo jireenka ah iyo waxa caalamiga ah ee qalinka ku duugeen oo aqoonsadeen inuu yahay nidaam dadku dhaqmi karaan. Haddaba cashirkan dulucdeena uga jeedna waxa weeye inaynu ogaano da'yarta Soomaaliyeed ogeysiino inaynu leeyahayn dhaqan soo jireena oo xeerar leh oo waxaga oo dunida maanta lagu tilmaamo inay cadaalad ku dadaalaan ama cadaalad sameynayaan kuwii ugu shidnaaba inaan nahay haddaan Soomaalina 600 oo sano ka hor ayuu dhaqankani jiray oo lagu dhaqmahay ama la soo bilaabayba wahagaag haddaba dhagalayda maanta aan qaadanayna waa dhagalayda sargooyo aad baad u fahmaysaan waa wax lagu cabirayo marka qaabka dacwadu u dhacdo qaabka dacwada loo qaado qaabka markhaatiga qaabka gudida wax u qaado qaabka gudida loo xulo markii dacwo dhacdo taasaa marka sargooyo loo soo qaatay arbixin ahaan qodobka koobaad labada qof ee arinta isku haya ama labada duul ee ishaya ama laba qabiil ha ishayaan ama laba qoys ama laba qof ha ishayaan ballan ayaa loo qabanayaa ballan markii bal loo qabto balkaas ayaa ku imanayaan balka la qabtay marka la gaadho ayagoo xidhahoodii watay imanayaan xidhahaas waa maxay xilli marka la qabtay la soo diirgaroobay waxa weeye in markii aad garanto ama lagu haysto ama aad cid haysato waa inay jirto marjic waa inuu jiro meel waa inay jiro ruux taladaadu ka xidhanto kana go'do ahlul xalli wal aqdi waxa la yiraahdo waa inaad wadato waa lagu weydiinayaa xidhahaagii meeba lagu leeyahay markaad soo fadhiisato xidhahaagaa lagu weydiinayaa haddaanu gartan kugu goyno iyo haddii aad garamayso adigu ruux baa tahay ruuxa mas-uulka kaa ah ee ku qabta ee gartaradaada qabta ee gartaada qaata waa ayo odaygan weeyaan baad leedahay ama adeerka ha noqdo ama qoyskaaga odaygiisa ha noqdo farda ku fiiqaysa waa la weydiinayaa isagana xidhihiisii ma tahay baa la leeyahay haa buu leeyahay waa la hubsanayaa ruuxaas ayaa xidhihiisii lagu xidhayaa dadkii balka u qabtay ee u dhaxeeya ayaa guddida kala dhabaya ama garta qaadaysa keeni kara guddida macnaha dadkii ballanta u qabtay dadka isu keenay ayaa guddida gartaa galaysana qabanaya sababtu maxaa weeyaan haddii ayaga lagu yiraahdo guddidiina keensada dee guddidii markaa keensata waxaad odhan lahayd iyo wixii aad ii goyn lahayd baan kusii sheegayaa heshiis baan kula gelayaa macnaha si ayna taas u dhicin markii ballan lagu yimaado ee adigii dacwada lagu haystay iyo kii haystay bay yimaadaan labadoodaba waxaa la weydiinayaa xidhahoodii markay sheegaan kadib ayay guddidii ballanta qabatay baa guddidii garta geli lahayd qabanaysa xulaysa hebel dad ayagu ay garanayaan bay soo xulayaan marka balkii la isugu yimaado ee geedkii lagu soo dhammaado yacni lagu dhannaado la wada fadhiyo ee salaada casar gadaashyada jooga gartii baa la bilaabi marka ugu horeysa markaa waa la ducayn markaa la duceeyo oday baa istaagaya ducadu markay dhacda kadib eeg hadda kii waxaystay kii la haystay baa yimid labadoodii xidhe baa la weydiiyey labadoodii oday ee taladooda ku go'day baa la weydiiyey way keensadeen intaa waan isla fahnay
geedkii baa la fadhiyaa geedka marka la fadhiyo duca lagu bilaabi ilaahay ducadana horey baynu usoo marray inuu curadku ducaynayo horey baynu usoo marray ducadaa marka la duceeyo kadib ayuu oday istaagayaa odaygaasi wuxuu leeyahay balka yaa qabtay war dadka yaa isugu yeedhay eeg hadda waxbaa la wada hubsanayaa saa markuu yidhaahdo kuwii ballanka qabtay ayaa waxay odhanayaan annagaa qabanay eeg hadda annagaa qabanay bay odhanayaan annagaa qabanay balka waxaad u qabateen iyo ciddaad u qabateen na maqashiiya ballanta idinkaa qabtay sooma dadka waa isu keenteen sababka aad u qabateen noo sheega ayaa leeyahay ninkaa hebel hebel ah iyo ninkaa hebel hebel ah baa wax isu sheeganaya oonu balka u qabanay baa markaa la odhanaya clarification baa la yidhaahdaa waa case adag oo maxkamad saaran wey dabeedna dadka annagaa isugu yeerno hebel hebel iyo hebel hebel baa is haysta waxbay isku haystaan bay odhanayaan intaa dabadeed waxaa la weydiiyey ninkii mudaciga ahaa ee soo dacwooday waxaa lagu yidhaa garta ayaad u doonaysaa garta yaad u doonaysaa isagaa la weydiinayaa walaalkay hebel baan ku doonayaa buu odhanayaa hebel aawey baa la leeyahay marka hebel aawey marka la yidhaahdo waa kan buu isaguna ku jawaabayaa yacni waa transparent wax qarsoon ma jiro wax walba waa wadax garbixiye ma tahay baa la weydiinayaa haa garbixiye waanahay buu odhanayaa yacni tani waxaa weeye waa la fadhiyaa soo maa markii la weydiiyo dadka yaa isugu yeedhay oo annagaa yaa isugu yeedhnay ay yidhaahdaan maxaad isugu yeedheen hebel iyo hebel baa is haysta intaa lagaga hadhi maayo hebelkii la yidhi waxbuu haystaa baa la weydiinaya le waryaad haysataa ninkan walaalkaya baan haystaa buu odhanayaa awey baa la odhanayaa waa kan buu dhahayaa intaa lagaga hadhi maayo asagii baa waxaa leeyahay waa lagu haystaa jid bixiye ma tahay garbixiye ma tahay haabuu odhanayaa waxaa mar kale su-aal la weydiiyey ninkii soo dacwooday mudaciga yaa markaa la weydiinayaa oo xidhahaagii aawey baa la odhanayaa markaas xidhahaygii waa odaygan hebel ah ee xaggan fadhiya buu isaguna ku jawaabayaa intaa dabadeed odaygiibaa 3 jeer waxaa lagu celinayaa xidhe ma u tahay mas-uul ma ka tahay 3 jeer dadku inay wada maqlaan baa la rabaa 3 jeer buu ka jawaabayaayo wuxuu odhanayaa waanu ahay haa buu isagu 3 jeer ku jawaabayaa ninka kale ee garta laga doonayo ee muddo caleyhiga sidaas la mid ayaa isagana loo weydiinayaa xidhahiisii baa la weydiin kabacdina xidhihiisii laftiisii baa waxaa la weydiinayaa inuu xidho u yahay baleeg hadda waxaan isu u cadiyahay marka halkaa joogto arrintu oday kale ayaa sara ka ah oo wuxuu si wada jir ah ula hadlaa labadoodii qof muxuu ku yidhahdaa wixii dhammaanaya iyo waxaan dhammaanayna kala gartu way dhammaan oo geedkan bay dee ku egtahay waa la kala bixi walaalnimaduse ma dhammaanayso oo weligeed waa idinla soconaysaa nin walbow dantaadoo kooban uun ka hadal badan iyo waxaa lama rabe ee wax ujeedkaaga oo kooban uun guddida u sheego dhiifna ha ku darin yani xanaaq iyo caraatan iyo sheekooyinkaana ha ku darin istuultuulna iska ilaaliya yani saxadgudub iska ilaaliya waana hal waana ah intaas oo waana ah oo xasuusin ah ayuu markaas odhanaya markaa dabadeed waxaa hadalka laga furaa oo dacwadiisa la dhagaystaa ninkii wax haystay ee wax doonaya baa la dhageysanayaa intuu arrinkaa wadana cid ka dhexgalaysa haba yaraatee ma jirto
wax walaalkaa hebel markaasaa ninkii uu hadalkii sidaa u dhammeeyo ninkii la soo dacweeyey waxaa la weydiinayaa waxa walaalkaa hebel uu sheegayo maxaad ka qabtaa isaguna jawaab uu isku difaacayo buuxda yuu bixinayaa markuu isna dhammeeyo dabadeed waxaa hadalka qaata guddoomiyihii garta oo wuxuu dhahaa ragga hadalka ka qora hada ragga hadalka ka qora buu odhanayaa qoraalka odaygu sheegaya qalin iyo buug ma aha ee rag baa waxay ku yidhaahdeen oo dhan xifdinaya dabadeedna halkaasay wax alla waxay yidhaahdeen oo dhan ay ku garanayaan oo ku akhrinayaan halkaa marka ay maraysa waxaa geedkii la fadhiyey amaba madashii dibadda looga saaraa labadii qof ee ishaysatay yaa bannaanka loo saaraa markaasay guddidu garta ayay gashaa oy gudaha u gashaa oo wixii qaabkaynu soo barannay ee hore aynu ogeyn ee sir iyo saac baa laga saarayaa nin buus cuniya waxaasaa laga saarayaa yacni sheekooyinkii oo dhan baa halkaas ka soconaya guddidaas oo walaalaha ah ninkii marka ay soo dhammaato sheekadaasi ugu horeyn waxaa lala hadlaa ninkii dacwooday waxaa lagu yidhahdaa guddida oo walaalaha ah oon ku eexanayn kaana eexanayn wixii ay soo gooyaan ma ogoshahay asagaa laga afqaadahayaa kabaallo ayaanu ogolahay buu odhanayaa kabaallo yani awrta marka la raraya kabaallada ku dhegan yacni sida kabaalladaas hortiga ugu dhegan yihiin ayaan go-aanka u qaadanaya dabadeedna guddidii ayaa wixii ay goysay ku dhawaaqda oo dadka maqashiisa hebelow gartii way kugu go'day hebelow gartii way kaa go'day labadoodiibaa sidaa loogu jeediyaa waxaa loo macnayn sidii uu ku helay oo xeerarkii iyo qodobadii iyo wixii oo dhan baa loo sheegayaa qodobka dacwadaadi marka la dhegaystay ayaad ku heshay garta kan kalena sida oo kale ayaa iyadana loogu sheegayaa haddii marka uusan ku qancin farta ayuu taagayaa farta ayuu saa kor ugu taagayaa farta maxaad u taagtay baa la weydiinayaa gartu way ii dhiman tahay tolkayow ha la ii buuxiyo odhanayaa sidee lagugu buuxiyaabaa markaa isagana la weydiinayaa tolkayow geed kale ayaan ka leeyahay buu markaa odhanayaa waad heshaa baa la leeyahay racfaan baan qaatay markuu yidhaahdo waa sax baa lagu leeyahay racfaan miyaad qaadatay waa okay eeg hadda waa maxkamadii oo buuxda oo hadda maxkamadahan ku yaala dowladda haddaad tagto waa tabtaasoo kale uun waa xeralaaliyihii waa xaakimkii waa guddidani sidan bay hadda waddankan aan joogo guddidani way ka jirtaa guddi baa jirta la socota kiiskan inuu cadaalad laga yahay si cadaalada in loo qaadayo in dadka gartooda si fiican loo dhageysanayo guddi noocaasaaba jirtaba weliba inta badan volunteer bay ku shaqeeyaan waa si bilaash u shaqeeyaan shaqooyinka la qabto bay ka mid tahay qofka waddanka jooga waxaa sharci inuu 18 sano iyo wixii ka weyn inuu yahay baa sharci ah qof kasta wuu geli karaa guddidaas guddida kale marka hadduu saa ku qaato guddida kale ee gartaas loo geeyo iyo geedka kale ee la geeyo gartaas geed walba oo la geeyo go-aankii guddidii horaa loo akhriyaa marka hore kadib dacwadii ay dhageysteen iyo go-aankan markay fiiriyaan ama way raacayaan ama wax kale ku darayaan ama waxay ka bedelayaan waa tabtaa haddaad abiil qaadato maxkamadda waxaa kaaga horeeya tii hore waxay xukuntay giiskiisa u dhageystay way soo akhrinayaan way ogaanayaan meel walbay soo arkayaan wixii qoladaas ay ku ildoofeen unbay kuwani ku xukumi karaan waa hagaag garqaadku guud ahaan marka waa sidaas waa hagaag maragta marka la yidhaahdo marka ee markhaatiga marka la yidhaahdo ee dhiig intuu dhaco dhiigana marag iyo markhaati markaa laga rabo qofka markhaatiga ah sidee baa la yidhaahdaa meel baa la googoobayaa goobaabinta la dhex istaajinayaa goobaabintaa marka la dhex 11 su'aalood baa la weydiinayaa waxaa lagu odhanayaa horta goobadani
waa dee gurigaagii waa qabrigaagii keligaan baa galaya cidoo kula geli mayso taa xusuusno waxaa marka kaloo la weydiinayaa 11 su'aalood ma bug baad maqlaysay ma balalax baad arkaysay ma wax lagu dhufanayaad maqlaysay bise dhiig daadanayaad maqlaysay ma bud baad arkaysay lagu jiiday ma wax lagu dhufanayaad arkaysay ma bac baad maqlaysay ma meel jabtay baad maqlaysay mise bilaa waad arkaysay ma toori baad arkaysay iyo wax bir wax lagu gudlo ma bidixdaad ka arkaysay ma dhinaca bidixdaad ka taagnay mise midigtaad ka joogtay ma xagga midig baad ka joogtay miyaad ka horeysay mise waad ka dambaysay ma beersaaraad arkaysay goormaa la dilay intaasoo su'aalood baa la weydiinaya guddidu ayagoo og qofka wixii dilay iyo wixii lagu dilay ayay waraystaan 11 su'aalood ay weydiinayaan waxay baarayaan inuu mid sax yahay markhaatigan iyo mid la samaystay inuu yahay ilaan guddidu markay gar ku jirto waxaan wixii dhacay qaabka u dhacay way og yihiin Soomaa at least waxbay kala socdaan sidaa ayay ninkaas u baarayaan maragti hadday marka marag fiican tahayna sidaasay ku furaysaa hadday marag xun tahayna sidaasay ku fashilmaysaa waa hagaag cashirka marka maxaad ku baratay sida garta loo qaado garta marka la qaadayo see weeyaa baynu nidhi labada qof ballan baa loo qabanayaa ku xidhihiinni wato oo gartiinni diyaar tahay imaada la odhanaya sidaa markay ku yimaadaan laga aamusi maayo waa laga afqaadayaa kow waxaa la weydiinayaa cidii dadka u yeedhay qoladii baa istaagaysa waa sida kiiska markii maxkamadda la qaadaya qofka kiiska hayaay uu istaago magacaagaa la yeedhinayaa kiiska lagugu dacwayaa la yeedhinayaa wuxuu dhan baa la sheegayaa xiraaliyey baa inta fadhiya looyarkii baa inta taagan looyarkaagii baa xagga taagan guddidii baa halkan fadhida waa sidoo kale wax walbana sidaa ayuu u cadyahay waa hagaag buugga qaybtiisii koobaad ayaynu ka gudubnay qaybtii labaad ayaynu hadda u gudubnay 16 cashir waxay ka dhigan yihiin qaybtii koobaad bas inay ahayd qaybta labaad ayaynu u gudbi doonaa qaybtana dhiigga ayuu ku saabsanaan doonaa inta aynu ku kalmi doono qaybta 17aad waa anigu Cabdiraxmaan oo idin listaa iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.